inaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaa la ii sheegay gabadhii yarayd inay xarig soo suratay adugu inay xarig soo suratay maxaa la yidhaahdaa inay xarig soo suratay adugu meel sare sariir dusheed ah sariirtaa ay fuushay ay ka soo booday marka gabar yaroo la dhalatay inay iskool ka imaatay ku qadaynaysay meesha mar dambe ay aragtay qofkaanoo uun naftu kusii dabayar tahay adugu iska qadaysay kabacdii waqtigii qadadeeda dhammaysatana ay ogaatay taa canugtano oo yacni beri hore naftu adugu yacni maskaxdu dhimatay adu isbitaal baa lagula orday baa la yiri isbitaalkii kolkii lagula orday 3 beri ku jirtay waxaa koomay gashay waxaa life support wax la yiraaha lagu xiray adugu life supportkii beri ayuu ku xirnaa inta la iima soo sheegin waxaa ka calool xumo badan inta inaanan la soconin fahanta maanta la ii soo sheegayo saacad kadib ka hor inay dhaqaatiirtu yiraaheen maskaxdu mar horey dhimatay wadnahana way ka noolayd marka waan ka bixinaynaa mishinkan aduu micnihii spare party in laga dhigto ayaa uun halkaa loo geeyay in oo xibnaheeda yacni la qaybsado ayaa meeshaa loo geeyey kolley maalin aad iyo aad u xanuun badan kolley iyaduna waqtigeeday qaadatay allaha u naxariisto allaha ka cafiyo allaha ka cafiyo allaha u naxariisto kolley dadkii qalday ayaana sabab u ahaa dadkaa ayayna aan kolley maalinta qayaamay ma noola maanta oo ayada cafis weydiisan maayaan dee aniga ay ugu dhibaateeyeenna xitaa ay weydiisan maayaan weli anay iga daba ordayaan dagaal iyo xasidnimo iyo yacni laakiin u dhammaatay intaas ayay ku lahayd ceeshkeeda dunida intaa ayay ku lahayd caasho daawud xaashi marka yacni waxaan ilaahay uga baryaa jannat alfirdows alaclaa madluumkeedaan ahaa qofkay dulmiday ayaan ahaa ayadana madluumkooda weeye oo waa dadkii dulmiga qoorta u geliyey laakiin aniga waa iska cafiyey inta xaggaygu u jirto u xalaal jannat alfirdows alaclaa allaha geeyo ilaahan uga baryay 2 ragcoo sunnahan u dukaday maanta janaasadeedu kuma tukan karo janaasadeeda kama qayb geli karo dhinaceeda dhulka ma dhigi karo waa layga dhaqaajiye meydkeeda waa layga dhaqaajiye